بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad nagala dhageysanaysaan waa Fatxi Media Production. barnaamijkuna waa barnaamijkii dhacdada wadahan oo kale ka maqli jirteen channelka Fatxi Media Production. barnaamijka maanta qodobada ugu door karoon waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay Soomaaliya oo ka qayb gashay meertada 33aad ee shir madaxeedka midowga Afrika. fadhi gaar ah oo madaxa ururka goboleedka iyad oo gorfeeyay xaaladaha dalka koonfurta Suudaan ayaa soo gabagaboobay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo booqday xarunta tirakoobka ciidanka qalabka shirkii 33aad ee hogaamiyaasha midowga Afrika oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay meertada 33aad ee shir madaxeedka midowga Afrika. laba ka mid ah raggii ku eedeysnaa kufsigii iyo dilkii ay u geysteen Caasha Ilyas ayaa lagu toogtay maanta magaalada Boosaaso. gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho ayaa casho sharaf u sameeyay simadii iyo suldaanadii dowlad deegaanka Soomaalida iyo Puntland. dagaal u dhexeeya ciidanka Jubbaland iyo ciidamada ka amar qaata madaxweyne Axmed Madoobe iyo kuwa Cabdinaasir Seraar oo isu galay magaalada Kismaayo. dood lagu hadlayay maqaamka caasimadda Muqdisho ayna ka qayb galeen duqa magaalada Muqdisho oo ka dhacday magaalada Muqdisho. qodobadaas iyo qodobo la mid ah ayaad ku maqli doontaan faahfaahinta warkani ku soo dhawaada. madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safar shaqo oo muddo 2 isbuuc ugu maqnaa dalka dibadiisa. Soomaaliya oo ka qayb gashay meertada 33aad ee shir madaxeedka midowga Afrika. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay meertada 33aad ee shirka madaxda dowladda iyo dalalka ku mideysan midowga Afrika oo ka qabsoomay Addis Ababa. barnaamijkani meertadan soo socon doonta muddo 2 maalin 9 bisha 10aad ilaa 10 bisha laga arrimeysan dib u habeynta hay'adaha midowga Afrika, hirgelinta aagga ganacsiga xorta iyo qaaradaha, xoojinta arrimaha nabadda iyo amniga dalalka midowga iyo doorashada madaxweyne cusub ee midowga Afrika sanadka 2020. fadhi gaar ah oo madaxa urur goboleedka IGAD uu ku gorfeeyay xaaladda dalka koonfurta Suudaan ayaa soo gabagabeeyay waxa ayna madaxdu isu xoog wareysteen miro dalka dadaal heer gobol ilaa heer qaaradeed ee lagu nabadeynayo dalkaas. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Mudane Cabdi Nuur Maxamed ayaa ka warbixiyay ka qaybgalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee shirkaasi oo muujiyay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay isgarab taagan yihiin qorshayaasha xasilinta amniga iyo siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa kormeeray xarunta tirakoobka qalabka ciidamada qalabka sida loogu soo gabagabeeyay howlihii la xiriiray ururinta xog iyo diyaarinta ciidan tayo leh. shirkii 33aad ee hogaamiyaasha midowga Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa. arrimihii ugu waaweynaa ee hogaamiyaashu ka hadleen ayaa waxaa ka mid ah sidii loo damin lahaa colaadda ka aloolsan qaaradda Afrika. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo khudbad ka jeediyay meertada 33aad ee shir madaxeedka midowga Afrika ayay ka hadlay dhinacyo kala duwan. madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda Soomaaliyeed iyo argagixisada u adkaan karto in la qaado cunaqabatayn hubka ay saareen si ciidamadeena ay u helaan hub casri ah oo ay dagaalka ku soo afjari karaan.
muhiimadda midnimada iyo wadajirka dalalka Afrika ay u leeyihiin xaqiijinta higsiga shucuubta qaaradda ee ooman horumarka, kobca dhaqaalaha iyo horumarka shucuubta Afrika. Laba ka mid ah raggii ku eedeysanaa kufsigii iyo dilkii ay u geysteen Caaisha Ilyas ayaa lagu toogtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa casho sharaf u sameeyay odayaasha ka yimid dhulka dowlad-deegaanka Soomaalida iyo deegaanada Puntland. Dagaal u dhexeeyay ciidamada Jubbaland ee ka amar qaata madaxweyne Axmed Madoobe iyo kuwa Cabdinaasir Seraar oo isna sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland ayaa hadda ka bilowday magaalada Kismaayo. Ciidamada Jubbaland ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen guriga uu Kismaayo ka degan yahay Cabdinaasir Seraar. Dood laga hadlayay maqaamka caasimadda Muqdisho ayna ka qayb galeen duqa magaalada Muqdisho iyo xubno kale oo ka socday hay'adda dowladda federaalka oo lagu qabtay Muqdisho. Sidoo kale waxaa xusid mudan in gudoomiyihii Daabid Cabdi uu xilkiisa ku waayay shir noocan camal ah oo looga hadlayay maqaamka Muqdisho. Halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii dhacdada. Intaan barnaamij mid caynkaan aan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo ammaan.